kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada Wajawa Media halkaad ka helaysaan warar sugan xogo sax ah iyo falanqeyn qiimo badan anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Wajawa waxaan idin soo gudbinayaa maanta qodobadii ugu door corona warkeena caalamka iyo dalka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mucaaradka Soomaaliya oo digniin ka soo saaray hirgelinta dastuurka cusub waxaad kaloo barnaamijkeena ku maqli doontaan maanta kaararka codbixinta oo la gaarsiiyay Walaweyn iyo Marka waa kuma hogaamiyaha ruuxiga cusub ee Iiraan iyo guud ahaan wararka caalamka dagaalada Iiraan iyo bariga dhexe xaaladiisa ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan u diyaar garoowa iyagiyo faahfaahsan rabtaa inaad la jaanqaado xawaaraha dunida tiknoolajiyada baraadinaysa qalab tayo leh oo aad isku haleyn karto haddaba ku soo dhawow hadaf technology halkan waxaan kugu diyaarinay laptopsyo tayo leh mobilada ugu casrisan oo ila jiraan agabkooda shaashadaha waaweyn iyo dhammaan qalabka IT-ga aad ugu baahan tahay shaqadaada iyo gurigaagaba haddii aad tahay qof ku jira saaxadda warbaahinta gaar ahaan baraha bulshadu waxaan ku haynaa mikrofoono iyo qalabka studio-da oo dhammaystiran agab kasta oo IT-ya wixii qalab aad ugu baahato xafiis ama guri tayo caalami ah adeeg la isku haleyn karo iyo qiimo kugu habboon waa halka aad kaga iibsan karto qalabka electronics-ka hadaf technology xarunteenu waa Baydhabo agaarka Shaneem Shantraal la sugin ee maanta na soo booqo hadaf technology hirka tiknoolajiyada mustaqbalka hadafkeenu waa inaan kugu xirno mustaqbalka tiknoolajiyada nagala soo xiriir taleefanada shaashadaha kaaga muuqda intaan idin soo gudbinin daawadayaal wararka bariga dhexe iyo dagaalada ka socda waxaynu ku bilaabaynaa wararkeenii maanta mucaaradka oo digniin ka soo saaray hirgelinta dastuurka cusub isbahaysiga mucaaradka ee golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa ka digay isku day kasta oo lagu kordhinayo muddada xilka hay'adaha dowladda federaalka xilli dhowaan wax ka bedel lagu sameeyay dastuurka federaalka kaas oo muddada xilka madaxweynaha iyo baarlamaanka ka dhigay 5 sano isbahaysiga ayaa sheegay in marka loo fiiriyo dastuurka ku meel gaarka ee 2012 muddada xilka baarlamaanka federaalka ay ku eg tahay 14 Abriil sanada 2026 halka muddada xilka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku eg tahay 15 May 2026 goluhu wuxuu si cad ah u mugdi ku jirin ugu soo horjeedaa isku day kasta oo lagu kordhinayo muddada xilka wixii ka dambeeyay xilliyada si cad loo qeexay dastuurka ku meel gaarka ee 2012 ayaa lagu yiri war-saxaafadeed uu goluhu soo saaray Soomaaliya waxay horey u aragtay cawaaqib xumada ka dhalata isku dayada muddo kordhinta ayaa la raaciyay golaha ayaa sidoo kale tusaale u soo qaatay qalalaasihii siyaasadeed ee 2021 markii qorshaha muddo kordhin ahaa uu sababay isku horimaadyo hubeysan oo dhexmaray garbiyo ka tirsan ciidamada ammaanka kuwaasi oo ka dhacay wadooyinka Muqdisho khibradaasi waa digniin cad oo muujinaysa in Soomaaliya aysan mar kale qaadi karin waddo horseedi karta xasilooni daro siyaasadeed iyo mid amni ayaa lagu yiri bayaanka dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dhawaan ku dhawaaqay in dhammaan hay'adaha dastuuriga ee dowladdu ay hadda ku shaqeyn doonto dastuurka cusub ee wax laga bedelay kaas oo madaxweynuhu saxiixay Axadii dastuurka dib u eegista lagu sameeyay ayaa muddo xileedka rasmiga ee madaxweynaha iyo baarlamaanka ka dhigaya 5 sano halkii markii hore ahayd 4 sano goluhu wuxuu sidoo kale ugu baaqay dowlad goboleedyada xubnaha ka federaalka ee muddada xileedkoodii dhamaaday inay si degdeg ah u qabtaan doorashooyinka goboleed isagoo adkeeyay in ixtiraamka kala qaybsiga awoodda dastuuriga uu muhiim u yahay xasiloonida iyo dowladnimada dalka kaararka codbixinta oo la gaarsiiyay Walaweyn iyo Marka oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa gaarsiiyay kaararka codbixinta magaalada Marka iyo Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose kuwaasi oo loogu talgalay doorashada golayaasha deegaanka tilaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo geedi socodka dimuqraadiyadda iyo hubinta in muwaadiniintu helaan fursado ay ku doortaan hoggaankoodii deegaanka degmooyinkan waxaa horey uga socday diiwaangelinta codbixinta iyadoo qaadashada kaararka codbixinta socon doonta muddo 1 bil ah gudoomiyaha degmada Marko Cadaani Axmed Diqow gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo taliyaha nabad sugidda degmada ayaa wafdiga guddiga ku soo dhaweeyay iyagoo shacabka ku booriyay in qof walba horey u diiwaan gashan uu qaato kaarka codbixinta si uu uga qayb qaato doorashada taas oo muhiim u ah
xoojinta horumarka iyo dowlad wanaagga degmada. Dhanka kale, kusimaha guddoomiyaha degmada Wallaweyn Yuusuf Cali Buule ayaa sidoo kale sheegay muhiimaddu ay leedahay in bulshadu ay qaataan kaarka codbixinta si ay uga qayb qaataan doorashada. Guddiga doorashooyinka madax bannaan ayaa horey u sheegay in 36 degmo oo ka tirsan dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Galmudug, Waqooyi Bari iyo Hirshabelle in lagu qaban doono doorashooyinka golayaasha deegaanka oo qof iyo cod ah si la mid ah tii gobolka Banaadir ka dhacday 25 Diseembar sanada 2025. Waa kuma hogaamiyaha ruuxiga cusub ee Iiraan? Golaha khubarada hoggaanka ee Iiraan ayaa doortay Mujtaba Khamenei inuu noqdo hogaamiyaha ruuxiga cusub ee dalka. Hogaamiyaha ruuxiga ee cusub ee dalka Iiraan kadib markii aabihii hogaamiyihii hore ee Jamhuuriyadda Islaamiga Cali Khamenei lagu dilay duqeyn ay fuliyeen Mareykanka iyo Israa'iil oo lala beegsaday gurigiisa. Mujtaba oo haysta darajada culimada Shiicada ee Ayatollah ayaa loo arkaa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu saameynta badan gudaha nidaamka Iiraan, inkastoo aan horey u qaban xil dowladeed oo muuqda isla markaana uusan si badan uga soo muuqan fagaarayaasha dadweynaha. Dhalashada iyo barbaarkiisii. Mujtaba Khamenei waxa uu ku dhashay 7 Sebtembar 1969 magaalada Mashhad ee Waqooyi Bari Iiraan. Waa wiilka labaad ee hogaamiyihii hore ee Iiraan Cali Khamenei. Wuxuu ku soo hanaqaaday xilli uu socday dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xooggan oo ka dhan ahaa nidaamkii Shaha ee Iiraan, iyadoo aabihii uu ka mid ahaa culimmadii diinta hormuudka u ah dhaqdhaqaaqaasi. Waxbarashadiisii diineed. Sida ay sheegeen warbaahinta Iiraan, Mujtaba wuxuu dhameeyey waxbarashadiisii dugsiga sare ka hor intuusan ku biirin xawsada diinta ee magaalada Qum, oo ah mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee barashada culumta Shiicada. Wuxuu cilmiga diinta ka bartay culimo waaweyn oo ay ka mid yihiin Maxamed Tiqi Misbah, Yazdi iyo Lutfullah, isagoo bartay fiqiga iyo culumta diinta. Warbaahinta Iiraan ayaa sidoo kale sheegtay in Mujtaba weli wax ka dhigo xarunta diiniga ee Qum, isla markaana uu ku sugnaa magaaladaasi markii la duqeeyey gurigii aabihii. Khibradda militari iyo siyaasadeed. Mujtaba wuxuu ka qayb galay dagaalkii Iiraan iyo Ciraaq, iyadoo warbixinada qaar ka mid ah saraakiisha ilaalada kacaanka Iiraan ay tilmaamayaan inuu ku biiray furimaha dagaalka sanadkii 1986 isagoo 17 jir ahaa. Waxaa sidoo kale la rumaysan yahay inuu door aan rasmiyeyn ku lahaa arrimo xasaasi oo siyaasadeed iyo amni, iyadoo warbixino kala duwan ay sheegayaan inuu ka qayb galay la tashiyo ku saabsan go'aano muhiim ah oo gudaha dalka ah. Arrintan ayaa ka dhigtay shakhsi si dhow loola socdo gudaha Iiraan. Cunaqabateynta Mareykanka. Sanadkii 2019 wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa ku soo rogtay cunaqabateyn Mujtaba Khamenei, isagoo ka mid noqday 9 qof oo ka tirsan kaaliyaasha hogaamiyaha sare ee Iiraan oo xilligaasi la saaray cunaqabateyn. Bayaan ay soo saartay wasaaraddu waxay ku sheegtay in Cali Khamenei uu qayb ka mid ahaa mas'uuliyadiisii u wakiishay wiilkiisa, isla markaana Mujtaba uu si dhow la shaqeeyey cutubka Qudus ee ilaalada kacaanka iyo sidoo kale ciidamada Basji, kuwaasi hoostaga ilaalada kacaanka. Weerarkii lagu dilay Khamenei intii lagu jiray colaadda u dhaxaysa Mareykanka, Israa'iil iyo Iiraan ee Maars 2026, ilo Iiraani ayaa sheegaya in Mujtaba Khamenei uu ka badbaaday duqeymo ay Mareykanka iyo Israa'iil ku qaadeen guriga aabihii ee Tehraan. Weerarkaasi wuxuu sababay dhimashada Cali Khamenei, xaaskiisii, xubno kale oo ka tirsan qoyska iyo sidoo kale saraakiil militari oo ka tirsan nidaamka Iiraan. Mas'uuliyiinta Iiraan ayaa sidoo kale sheegay in xaaska Mujtaba, Zahra Hadad Adel, oo ah gabadha siyaasiga caanka ee Iiraan, inay ku dhimatay weerarkaasi. Mowqifka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horey uga soo horjeestay in Mujtaba Khamenei loo doorto hogaamiyaha sare ee Iiraan. Wareysi uu siiyey mareegta X, Trump wuxuu sheegay in natiijadaasi aan la aqbali karin, isagoo ku tilmaamay Mujtaba shakhsi daciif ah. Wuxuuna intaasi ku daray in Mareykanku doonayo inuu door ku yeesho arrimaha la xiriira hoggaanka Iiraan. Doorashada Mujtaba Khamenei ayaa imaanaysa xilli ay Iiraan wajahayso xaalad siyaasadeed iyo mid amni oo kacsan, taas oo ka dhalatay dagaal ballaaran oo gobolka Bariga Dhexe ka socda. Erdogan oo ka hadlay isagana xaaladda Bariga Dhexe, qof kasta waa inuu iska ilaaliyo inuu ka dhaco dibinka Yahuudda ee doonaysa inay laba walaalaha iska horkeento, ayuu yiri.
Iiraan ayaa sheegtay saaka weerar lagu soo qaaday dhulka dal deris la in lagu beegsaday warshada biyaha badda sifaysa oo ku taala jasiiradda Qashib. Sida warbaahinta la wadaagay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan oo aan magacaabin dalka weerarka lagu soo qaaday. Tilaabada uu sheegay inay ka dhalanayso inay Iiraan qaado weeraro lagu beegsanayo kaabayaasha nolosha. Iiraan ayaa maanta ku weerartay Tel Aviv nooc gantaalo cusub oo burbur iyo dhimasho dhaliyay, iyadoo Israa'iil ay qiratay dhimashada 3 qof iyo dhaawac tobanaan kalena halka telefishanka Israa'iil ee Channel 12 oo sharaxaya gantaalada Iiraan uu sheegay inay siteen 24 bambaano oo yaryar mid kasta miisaankeedu yahay 2 ilaa 5 kiiloogaraam. Bambooyinkaas ayaa ku kala firdhay dhul ballaaran. Dagaalka Iiraan iyo xulafada Mareykanka ayaa galay wejiyo halis badan. Madaxa xisbiga Hudabar ee Kurdiyiinta Zikriya ayaa fariin u diray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isagoo yiri Kurdiyiintu maaha addoomo uu aabbaha leeyahay ama ay leeyihiin xoogagga mugdiga ee adiga xukuma. Gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan dhankiisa Mahmoud ayaa isagoo hadal toosa ka jeedinaya telefishanka Iiraan wuxuu yiri maanta gudaha Ciraaq ciidamada Mareykanka waxay sameeyeen howlgal ay diyaarado qumaatiga ka dejiyeen ciidamo si ay u fuliyaan howlgal gaar ah, laakiin waxay arkeen waxay dadka Ciraaq ku sameeyeen. Waxay ku qasbanaadeen inay halkaasi ka cararaan isla markii dhulka ay cagta saareen. Dadka Ciraaq ayaa si xoog leh u weeraray, qaarna way qabteen oo maxaabiis ay ka dhigteen. Guud ahaan daawadayaal waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen waa Jawah Media. Tariyo kulanto dambe waxay isla akhyaaray nabadgelyo.